saad la socotaan waa nidaam dheer oo u baahan waqti iyo sabir iyo shaqo. waxaan filayaa shirkadda ku guuleysatay inay nidaamkaas ka caawinto booliiska oo waliba shirkad local ah oo reer Puntland ah. waxaan ku faraxsanahay inay aqoonteedii leeyihiin, annaguna waxaan leenahay khubaro oo waliba gacan siin karta. waxaan filaynaa sharcigan uu noqdo sharci wuxuu tara Puntland iyo isteedada kale oo waliba Soomaaliya ay ka dheehan karaan. waxaan filaynaa in markii Soomaaliya dowladda cusub dhalato ay laftigooda isu waafajin doonaan kan Puntland iyo kan federaalka oo la samayn doono. laakiin waxaan fursad ah inaan haysano habraac guud oo la isku waafaqsan yahay. saa daraadeed waxaan leeyahay waa mahadsantihiin, dadaala waqtiga iyo maskaxda tuujiya. fikraddiina waxaa la idinku soo xulay dhammaan hay'adaha ka socotaan, ha ahaadeen civil society, ha ahaadeen dhammaan hay'adaha dowladda, ha ahaadeen kuwa oo private sector ka imaanaya ama ganacsiga gaarka loo leeyahay. waxaa la idinku soo xulay waa aqoon la idinku tuhmaayo iyo talo inaad ku biirisaan barnaamijkan sharciga qoraalka ah ee lagu talagalay booliiska Puntland. annagu waxaanu markasta garab taagannahay sidii hay'adaha dowladda u shaqayn lahaayeen, ugu adeegi lahaayeen bulshada Soomaaliyeed si loo helo cadaalad iyo horumar iyo kalsooni iyo hufnaan dhammaystiran. waan ballan qaaday inaan sii wadi doono haddii la haydmo. dadaalkan wuxuu ka mid yahay dadaalada aan awoodno oo garab taagannahay dowladda. waan mahad celinayaa si gaar ah maamulka dowladda Puntland hoggaankeeda oo ka dhabeeyey inay tayeeyaan dhammaan hay'adaha dowladda si loo helo adeeg hufan oo dhab ah. waxaan mahad gaar u celinayaa maamulka iyo hoggaanka booliiska Puntland, taliyaha taliye ku-xigeenka. waxaan siinayaa waliba mahad gaar ah wasaaradda amniga oo markasta u qareenta sidii amniga Puntland uu noqon lahaa amni tusaale u noqon kara amniyada kale qeybaha kale Soomaaliya guud ahaan. annaguna waxaanu ballan qaadaynaa sidii ballantu ahayd inaan garab istaagno dowladda wixii tabar iyo tala iyo khibrad ah aan ku biirno haddii la haydmo. waxaan idin rajaynayaa saddexdaa beri inay wax taaban karo ka soo baxaan shirkan waa tashiga sharciga dib u eegista sharciga booliiska Puntland oo ku saleysan nidaamka federaaliga ah. waxaan idin rajaynayaa guul. waxaan rajaynayaa insha Allah waxa ka soo baxa inuu noqdo wax lagu farxa ummadan wax tara. waana mahadsan